gudida taakulaynta abaaraha ee gobolada galbeedka Soomaaliland salaadiinta dhaqanka iyo culimada maamulka gobolka Awdalkan degmada Boorama iyo ganacsatada gobolka Awdal oo maanta isugu yimid Hotel Aldor ee magaalada Boorama ayaa waxay ka wada hadleen sidii qaaraan loogu ururin lahaa barakacayaasha ka soo barakacay gobolada bariga Soomaaliland ee abaarta baasani ku dhacday kulankani oo halkaasi ganacsatadu kaga yabooheen deeq kala duwan ayaa waxa halkaasi ka sheegay ogayaha gudida abaaraha Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Xasan waxaanu yiri maanta oo maalin axada shir halkan ku qabtay ganacsatada iyo cuqaasha salaadiinta iyo maamulka gobolka Awdal iyo gudiga taakulaynta abaaraha waxa ka soo baxay qaadaan dhan $22,000 600 oo kiish oo raashina 250 kartoon oo timira 25 booyadood oo biyo oo masaajidda ku deeqday iyo 100 kartoon oo sharaab geestooda waxa hadalka iska daba qaatay salaadiinta dhaqanka iyo culimada waxaana ka dhawaajiyeen sida loo sheegay waxaan u sheegay maanta halkan hoolkan Haldoor waxa lagu qabtay kulankii koobaad ee qaadaan ururinta abaaraha dadka abaaraha ku soo tabaaloobay ee bariga Soomaaliland ka yimid ayaa halkan lagu qabtay waxa isugu yimid ganacsatadii culimada salaadiintii haweenkii iyo ururadii bulshada oo dhamaantood badhan waxaana la bilaabay maanta oo si rasmi ah u bilownay ururintii qaadaankii wixii loo geeyay maahine wax dambe iyo sidii dadka loo qaabil lahaa halkan maanta waxa ka bilaabmay taakulayntii dadka tabaaloobay ama abaaroobay wajigii ugu horeeyay waad maqlayseen lacagta la yaboohay waad maqlayseen hadda waxaan ugu baaqaynaa dadka inta kale ee hadhay ma aha yani inta maanta bixisay waa intii maanta ugu horeysay ee timiday weey halkan gudoomiyuhu wuxuu gacanta ku hayaa liiskii ganacsatada ayuu gudoomiyaha deegaanku gacanta ku hayaa waxana haboon gudida in loo yimaado oo qofka ganacsatadii intaan la oran isagu intaas lagu qoray aan la oranin inuu yimaado marka wajigii koobaad baa bilaabmay in laga hadhana maahay waa in maxay hayday arintaasi si aad loogu guntay gabagabadu waxa hadalka soo afmeeray maarka degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydhane iyo barsaabka gobolka Awdal Mustafa Cabdi Ciise Shiine waxaanay ka dhawaajiyeen horta kaaniga duqaahan degmada Boorama waxa ay sharafa inaan maanta qaadaankii ugu badnaa degmada qofkii ku yabo hayana satada imika meesha timid 10 qof ma dhanay liiskan haynaana way ninka arkay liiska ganacsatada Boorama ama ha yaraado ama ha badnaado waa intaas kun oo qofkii isagu keenana waa sidiisa kalena waa hol la hortagayaa wixii la weydiiyay haduu diidana waliba inta ganaax lagu daraa la xidhayaa ma anagu waxaan qaadanayno oo wax aan mad ku badbaadinayno markii naf badbaadin joogto wala isqasbaya maanta waad arkaysaan dadkii reer Awdal waxay diyaar u yihiin inay abaal celiyaan oo u gurmadaan dadkii walaalahooda ka soo qaxay ee abaartu ka soo barakaysay bariga waxaan aad ugu mahad celinayaa jaamacadda Amuud iyo ganacsatadii iyo dawladda hoose ku yaboohay maartay dhaqaalihii maanta meesha laga sheegay aad arkayseen $20,000 iyo maartay kun kiish raashin ku dhow marka la isku daro timati raashin oo waxaana waliba iman jaamacadii kale isku soo wada duuba abaarta baasan ee ka jirta bariga Soomaaliland ayaa midaan caawimadeeda u kala hadhin ummadda Soomaaliyeed Xuseen Catiye Jaamac Xuseen Gafne kula falanqaynta siyaasadda ee 19 magaalada Boorama.